عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ونصر حسن علي هالكان نقد عوانيسان ونصر يسوم فود شو أخياري ملك استودنا ذيك جوكتان وإن سلامنا رمضان مبارك إن ما شاء الله رمضان كهر إلهي عاف ماذي عمر دير أيونا وصول مي كيسان إلهي عمر دير عاف ماذي إلهي هنسيو أنت حنوسن إلهي عافيو أنت سؤسور تقلين أردنتان إلهي نحرستي جنها سيو إن ما شاء الله إن رمضان كحياة بدنا أيام لو لقبها هي إن وإن رمضان كدتك أنا سومالي جوج عاونا أن كور قبنا إن دتك أنا حنوسنا ودعينا مركز تدعي سنة دعاء هذيك لينا إيش كدعي اسمها وأنا دتك أودعي سوا وأنا دلك أودعي سوا وإن سومالي ودنا أودعي سوا أمد الإسلام كأودعي سوا ما شاء الله إن أصحابي وحايجوا وأنا وحايجوا رجلنا haddii aad aragtid qof wanaagsan oo wax wanaagsan sameynaayo inaad ku faraxdid aad soo dhaweysid oo u sacabtuntid hadaa aqoonin xitaa maaha qasab inaad taqaanid maxaa yeelay marka adi qofkaas ku faraxdid adina bil waxa helaysaa qof ku caawiyo kugu farxo ku dhiirigeliyo laakiin ma aha inaad qofka xumaan uu salahayn aad ka sheegtid aad been ka sheegtid in farxadda lagu sheegayana waxa waa qofka inuu qalbigiisa nadiif yahay qalbigaaga hadaa inta qalbiga nadiif ka tahay farxad waa haysataa hanti waa haysataa caafimaadna waa haysataa laakiin halkan hadii xanuunkaaga jira aragtid qof wax fiican sameeynaayo aad ka xumaatid waa xanuunsan tahay qof xanuunsan tahay isbitaal kasta lagu geeyo xanuunkaas wax ka caafinaya malan ilaahay inaad baradid oo qalbigaaga nadiif ka dhigo inaad dadka dhiirigelino inaad dadkeena garab istaagno way fiican tahay bulsho fiican dad fiican oo bulshadana u soo baxado dadka wax siiyo dad wax u qabto waa wax lagu faano ma fahamtay marka ma sha Allah saxaabay dad badan way nagu jiraan wanaagsan oo dadka dhiirigeliyo dadka gacan qabto ma ahan in xumaanta la faafiyo in dadka la dulmiyo in gabdhaha Soomaaliyeed ama qof Soomaali ama nin Soomaali nooc oo doonaha aragto qof hadda aragtid qof wax ka sheegay waa inaad dhahdo walaal Ilaahay ka baqan walaal Ilaahay ka baqan adina ajra ka helaysa laakiin marka aad dhageysatid qof wax ka sheegay adna waxa arkaysaa bari in lagu mashquulo dad ku mashquul ah helaysa marka asxaabay ma sha Allah hadii hadda aragtid family burburaya ama dad istagaalaya ama laba qof oo isqabo dib dhexdooda yaalo in waxa laga rabaa adin kartid inaad u dhiirigelin kartid caawin kartid afkaar asin kartid laakiin marka aragtid qof asaga emotional ah oo xanaaqsan oo kacsan ismaayaa sameey amriya naag faa'iido ma lahan naag waa helaysaa inaad aad maahan maxaa yeelay dhibta haday sii badato dulmigiya sii badanayo ilmo waxa imaanayo waalid haysan ama dib badan haysto marka saxaabay waa inaan isdhiirigelinaa waa inaan xumaanta iska reebnaa waa in wanaaga asfarnaa ma aha inaan wanaaga ka leexano xumaanta aan sii faahfaahino fiican ma ahan insha Allah markasta waxaan jeclahay noloshiina ka hadlo cuntada isqurxinta waxyaabo badan laakiin markasta muhiimadeeda ugu weyn aan jeclahay ka hadlo waxa waa lifestyle-ka qofka nolosha maxaa yeelay qofka markuu nolosha bulshada aad ka hadashid dad badan oo waxa arkaysaa dhibta aad ka hadlaysid ku tusaale qaadanayo u maleynayo dhibtaas dhib wax ka fiican inuu helayo ama uu arko qofka markuu nolol fiican haysto ama problem haysto problemku waa wacad laakiin dad ka sii dhiban ama wax dhibaato asaga haysta mid ka sii daran markii looga sheekeeyo waxa laga yaabaa inuu dabco oo kugu tusaale qaato oo adna Ilaahay ajir ka siiyo insha Allah videogan dad badan waxa jira waxyaabahaas ka hadlo dadkaasna inaan dhiirigelinaa aan isgacan qabsanaa aan wax wanaagsan aan iskugu sacabtuna waxa xun markii la sheegayo ku farxina share gareen waxa fiican markii la sheegayo share garee ku farax dadka kale tusi maxaa yeelay waxyaabo badan ayaa ka faa'iideysaa marka Ramadaan wanaagsan Ramadaanka kaliya in la isdhiirigeliyo markasta waa inta qof ku mashquul leed adiga isku mashquul caafimaadkaaga ka taxadar waqti inta qof gelin leed adiga isku mashquul waqti isgeli qof waxba ka sheegin ogow hadaa qof wax ka sheegtid ama qof aad ku maqnaad adna lagu maqnaanaay beenta waa xaraam xisnimada waa xaraam dulmiga waa xaraam dhibaatada waa xaraam haddii aad keli tahay oo maanta qof ku mashquulshid bari ilmahaaga lagu mashquulnaado Ilaahay ilmo ku siiyo hadii maanta as leedahay qofkan kuma maqlaayo wax ka sheegaysa Ilaahay ayaa ku maqlaay dadka la isku diro inta badan bulshadeena waxay badan tahay dadka isku diro dadkiina isku dirtid ma ahan dadkiina cadow ku noqotid ma ahan dadka qof wanaagsan waxa arkaysaa oo qurux badan xumaan laga sheegay wax fiican ma ahan ma sha Allah asxaabay waxaan kaga tagayaa khayr iyo caafimaad aan isdhiirigelino aan iscaawino waxyaabo wanaagsan isla share gareeno dhammaan waxaan inta ugu mahadcelinayaa asxaabta cuntada soo geliso YouTube-ka waxa ay sameynayaan horaha ugu sii socdaan hay isdhiirigeliyaan waxaan inta ugu hambaliyanayaa cooking stories oo wiil Soomaaliyeed oo cunto soo geliyo Snapchat-ka ما شاء الله wuxuu sameeynaa wax aad u wanaagsan waan ku faraxsanahay abo waxa ku leeyahay halkaas ka sii wad gabdhaha Soomaaliyeed oo cuntada YouTube ka soo gelinayo
waxaan idin rajeynayaa inaa halkaas iyo meel kasii fiican aa kasii wadaan hambalyo bulshadeena cunto kelimahan qof kasto waxyaabaha qalbigiisa ka buuxaya qof walba qalbigiisa wax badan ayaa ka buuxaya haddii bulshada loo soo bandhigo waxyaabo badan ayay ka faa'iidayaan maxaa yeelay haddii dhibta qof waxaa laga yaabaa maanta in cunto iyo waxyaabaha nolosha aan ka hadlayo haddii qof beri wax uu ka sheekeeyo waxaa laga yaabaa waxaas uu qofka ka sheekeynaya inay anay taabanayso aa wax badan ka faa'iido oo farxad aa ku noolaado maalinkas markaan daawado maasha allah aan ku noqdo marka fadhiga laga kaco qof walba haddii xagga diinta qof in wax loo soo geliyo qurxinta cunto karinta bulshada nolosha haddii xitaa aad taqaanid xitaa waxyaaba qofka sida qofka horumar uu ku samayn karo waxaa laga yaabaa nasro kale inay kaa daawato oo wax badan ay ka faa'iido marka qof walba waxbaa qalbigiisa ku jiro hal soo bandhigo sida bulshadeena ay horumar ay u gaarto dhammaan asxaabta Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waan salaamaya asxaabteyda social media kulligiin idinkana waa idin salaamaya meel kastoo dunida ka joogtaan sida ii dhiirigelisiin sida niyadda igu dhistiin sida ii garab taagantiin waa ku mahadsantihiin maasha allah asxaab badan oo wanaagsan oo fiican ayaa i garab taagan taasna waa wax lagu farxo waxaan idinkaga tegayaa ramadaan wanaagsan ramadaan mubaarak maasha allah ramadaankiisa ilaahay caafimaad ha nagu gaarsiiyo ramadaankan waa inaan soo dhaweynaa waxyaabo badan aan isku dhiirigelinaa insha allah barnaamijka noloshana asxaab badan oo snapchatka ku jirta waxay leedahay nasra youtube-ka soo geli maasha allah youtube-kaad waa soo gelinaya intaasi inka badan waa soo geli doonaa hadduu ilaahay yaraado markasta waxaan jeclahay inaan nolosha qoyska ka hadlo markasta waxaan ka hadlaayana wax reality waaye maaha wax aan iska dhahaayo waa wax qof soo taabtay ama aan ogahay ama waxay ka bilaabatay wax kasta markaa sameynaysa waa inaad taqaanid waxaa ka hadlaysa waa inaad garan kartid insha allah waxaan idinkaga tegayaa khayr iyo caafimaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu